garsoorka maxkamadda cadaaladda adduunka ee ICJ ayaa ku dhawaaqay in markii saddexaad dib loo dhigay waqtiga dhageysiga dacwadda muranka badda ee u dhaxeeya Soomaaliya iyo Kenya. War ka soo baxay maxkamadda oo fadhigeedu yahay magaalada Hague ee dalka Netherlands ayaa lagu sharaxay sababta dib loogu dhigay jadwal cusub oo ka soo baxay kaas oo lagu cadeeyay waqtiga ay maxkamaddu dhageysan doonto kiiskan. warqad loo diray dowladaha Soomaaliya iyo Kenya ayay garsoorka maxkamaddu ku sheegeen in markii ay dhageysteen codsiga dib u dhigista oo ay Kenya u gudbisay maxkamadda sidoo kalena ay eegeen xaaladda adag ee uu sababay xanuunka coronavirus ay go'aansadeen in waqtiga furitaanka dhageysiga kiiskaasi laga dhigo 15 bisha Maarso ee sanadka 2021. dhowr jeer oo hore ayaa dib loo dhigay dhageysiga kiiskan kadib codsiyo maxkamadda uga yimid dowladda Kenya, balse haatan waxaa lagu cadeeyay qoraalka ICJ in saameynta cudurka coronavirus uu qayb ka yahay go'aanka dib u dhigista. Ra'iisul Wasaare ku-xigeenka xukuumadda Soomaaliya Mahdi Maxamed Guuleed oo ka hadlay go'aankaasi ka soo baxay maxkamadda ICJ ayaa sheegay in dowladda Soomaaliya ay mar walba doonaysay in dacwadda la dhageysto waqtigii loo qorsheeyay oo ahayd horaanta bisha soo socota, balse dowladda Soomaaliya ay haatan ku qasban tahay inay u hoggaansanto amarka dib loogu dhigay dhageysiga kiiska ee ka soo baxay maxkamadda. Mahdi Guuleed waxa uu sheegay in maxkamaddu ay go'aamisay in dhageysiga dacwadda uu noqon doono mid afka ku saleysan oo aysan jiri doonin cadeymo qoraal ah kuwaasi oo maxkamadda lala hortagi doono maadaama ay labada dowladood horay u geeyeen cadeymaha ay dacwadooda saldhigga uga dhigeen. waxaan doonayaa in aan la wadaago shacabweynaha Soomaaliyeed waxaad ka wada warqabteen in dacwadii badda ee u dhaxaysay dowladda federaalka Soomaaliya iyo dalka Kenya oo hadda 6 jirsatay. Kenya mar labaad iyadoo aan cidnaba ayran weydiisan ayay 2 May ka soo 4 May sanadkan ka soo jawaabtay doodii adkeyd ee Soomaaliya oo aan ku diidanayn dib u dhigka dacwadaas. Soomaaliya waxay mar labaad fursad u heshay in ay ku celiso dood culus oo ay maxkamadda cadaaladda adduunka ka codsanayso 7 May ee sanadkan in aan dib loo dhigin waqtigeediina la dhageysto looyarada iyo dhinacyaduna iyagoo guryahooda kala jooga dalalkooda jooga goobahooda jooga maxkamaddu ay online ama video conference ay ku dhageysato. hayeeshee maxkamadda cadaaladda adduunka ikhtisaaska iyada iskale go'aanka iyada iskale dhageysiga dhinacyada ay dhageysanayso. waxay maxkamaddu soo saartay go'aan ah in dhageysiga dacwadda u dhaxeeya dowladda Soomaaliya iyo dowladda Kenya dib loo dhigay lana dhageysan doono 15 Maarch 2021, 17 Maarch iyo 18 Maarch iyo 19 Maarch. muddada 4 cisho ah oo 2 cishana ay Soomaaliya leedahay 2 cishana Kenya leedahay. maxkamaddu waxay ku sababaysay xaaladda qeyrul caadiga ah ee ka dhalatay sida ay qoraalkeeda ku tiri COVID-19. maxkamaddu waxay ku celisay in doodda kaliya la dhageysanaya ay tahay mid afeed oo aan la aqbali doonin dokumentiyo iyo qoraallo cusub oo aan awal la soo gudbinin mar kale oo hadda maxkamadda dib loogu gudbiyo. waayo doodda qoraalka horaa dhinacyada looga dhageystay horay u dhamaatay wixii ka dambeeyana waa go'aanka kama dambaysta ah ee maxkamadda cadaaladda adduunka. dhageysiga dacwadda ayaa bilaabanaya 15 bisha Maarso ee sanadka dambe waa 2021 waxaana la wadi doonaa muddo 4 maalmood ah. maalin Isniin 15 bisha Maarso sanadka 2021 tobanka barqanimo ilaa 1 duurnimo waxaa la qabanayaa furitaanka doodda afka ee dhinaca Soomaaliya wareegeeda koowaad. isla maalintaasi 3 ilaa 4 ee barka galabnimo waxaa la sii wadi doonaa doodda afka ee dhinaca Soomaaliya isla wareegeeda koowaad. kadib maalin Nasiina ah maalin Arbaca 17 bisha Maarso 10 barqanimo ilaa 1 duurnimo waxaa la qaban doonaa furitaanka doodda afka ee dhinaca Kenya wareegeeda koowaad. isla maalintaasi 3 ilaa 4 ee barka galabnimo waxaa la sii wadi doonaa doodda afka ee dhinaca Kenya wareegeeda koowaad. maalinta xigta ee Khamiista 8 bisha Maarso 3 ilaa 6 galabnimo waxaa la dhageysan doonaa doodda afka ee dhinaca Soomaaliya wareegeeda labaad iyadoo maalinta u dambaysa ee Jimcaha 19 bisha Maarso 3 ilaa 6 galabnimo la dhageysan doono doodda afka ee dhinaca Kenya wareegeeda labaad. waxaana intaasi kadib laga warsugi doonaa go'aan kale oo ka soo baxa maxkamadda dacwaddan qaadaysa ee ICJ.